والسلام يا تلوينها شرفتي كرامة مدن بيش جامع السياد يقولها العصبة للسميي يا بانو السلام يا يعني كي أحمدها أو أن عنده ويد صوت دوبين سيدي أضياش يوير هذين قولياش وحبا كود دوبين أو 40 تليفون كل شيء سيدي دواء ويدنا وحبا صوت دوبين كليبادنا نادو حمودين إلى سنة يقوم باللقاء oo social media la soo dhigayay oo waxaad moodaa inay taarget gareynayo dee nin goobta joogo soo waramaya inaan ahay golahan cusubna aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa. waxaan kaloo halkan ka tacsadanayaa abwaankeenii weynaa jaamaca kadiye ilaahay ha u naxariisto dhammaan ehelkii iyo inaga haynaga sii sabiriye imaan isagana jalatul firdawsa ka waraabiy. intaa marka ka imaado dee warbixin baa dee kolley golaha igu soo darteen oo dee inaadan siiyo anigu ninkii ugu dambeeyey baanu hayno markuu dee allahu naxariistay abwaanku la dilay ninkii ugu dambeeyey uu ka tegey ayaanu hayno. wuxuu igu yidhi waxa weeye salaadan aan soo tukbeel baan kuwada tukan jirno maanta wuxuu yidhi salaadan masaajkan aadayaa arkaa saddex nin baanu hayno axmed maxamed khayre iyo aniga iyo faatax ayaanu hayn saddexdaasaan hayn faatax cali maxamed xirsi waa garanaysaan ayaanu hayn odagu waa unaga tegey allah u naxariisto. warbixintiisa haddaan idin siiyo dee waxna waxa weeye waxa aynu dee dadka ku difaacayno si aan dhulbahanta isu qabsan weeye waxana waxa weeye dee wixii xaqiiqada ahaa marka idinku dee ehelkii baa tihiin oo inaan wixii xaqiiqada idinka warramo waa waajib. iyo ninkaa abwaankaa waxaa dilay niman inaga ah oo bahararsama ah oo la socda oo diidan puntland. abwaankuna waa ogeedin dee puntland buu indhoweydba ku xidhnaa. waxay yidhaahdeen waxaad wadataa hoosta ku wadataa saciid cabdullaahi deni waad ogeedinoo dee hoolkeenu maanta dhowd ku wada shiraynay dhulbaanta isugu yimi odayaashiisii dhaqankiisu inuu dee ka hadlayo lahaa inuu dee gallo puntland oo aynu tulkeen wax la qaybsanno oo ay dee odagii faarax warsama isqabteen faarax warsama cali isqabteenay uu lahaa puntland baa turta kusii tahay fara isku tagtageen in la kala qabtay dee waad ogeedeen arrinkaasoo war la qabaa xiisamalo idinku noqon maayo. nimankaas kasoo horjeeda baarasame kasoo horjeeda puntland ayaa waad ogeedo waa la isku dhacsanaa dhulbaanta waa isku dhacsanaa dabeetana nimankaasa ka dayimi waad ogeedo afartan nin dhadeer u xidhan ee loo haysto ayaa dee dulkiisa fuliyey oo weliba ninkaa dee awoodigu adeer garaadku dee ay ilmaadeerka labaad yihiin labadooda kala dhaleen ayaa darsaasta hor bilaabay oo bardololka ku furay. marka tan midiyaha inaynu nahno duqeyntii uu ku dhintay anigu waan taageersanahay taa waan taageersanahay dhulbaanta isugu dhici waa arrin aan taageersanahay laakiin de xaqiiqda markaynu inagu nahay dee inaynu xisaabtanno oo talow abwaankeeni dee soomaali waxaa noo sheegnay inuu duqeyntaa ku dhintay laakiin dee ummadii inaga silmixta videogii baa la hayaa ummaddii inaga silmayso waad aragtaa rasaasta lagu furaa furtay nina yar rasaasta ku furay. markaanu ay odayaashu wada hadleen nimankii baarasamena waxay yidhaahdeen nimankii waa soo qabanaynaa laakiin arrinta yaan la baahinin oo dee aanay gelin media iyo dadku kale ogaanin. marka arrinkaasu sidaasu ahaa nimankii uu ku xidhnaa majaarteenaynala joogay dee walaalaheena helaartay ahaa dee nimankii runtii iyaguna way ogaadeen arrinkan inuusan u dhacay oo way ka biyadiideen oo way xanaaqsan yihiin laakiin dhulbaanta gudihiisu inuu xisaabtamo ayaa wanaagsan. nimanka afartaa ninna waa inama yar lasoo diray laakiin dee waa saddex nin way soo qabteen nina wuu baxsaday saddexda nin rag baa ka dambeeyey saddex nin laba nin waxay sheegeen in anaga lasoo diray
in la soo diray garaadka waad ogeydano labada nin bay imaadeen ruma yihiin saad la socotaan nin uu baxsay ninkii la qabtay ee kale wuxuu yidhi markii la weydiiyaa ku soo diray wuxuu yidhi garaadku arrinkan ma ogeyn markii dambena wuu kala hadlay wuxuu yidhi somaliland baa la socotaan iyo waxbuu akhriyey somaliland ayaad la socotaan haddaba ninkii puntland ku dilay arrinkiisa waxaan warbixin yaro kooban baan doonaya in soo koobo oo aada arrimahana dee say xaaladdu tahayna la socotaan allahu naxariistay odayga waan aasnay dhulbahante arrinkiisa inuu ku midoobo dee dagaalamanina waanu doonayno si aana isu qaban laakiin dee dhulbahante maanta dhexdiisa ka taaganta hadeer waa la kala fadhiyaa ogaadhiyahan siyaad iyo jaaca siyaad dhinac bay soo raacaan hadeer saad ogtiin mooyi halgankii maanta ahayd inaan markaanu sheekadaas lasoo dhigay guurtidii odayaashii aan la hadalay in dee dagaalka la galo sif loo galo laakiin nimankii ugaadhiyahan siyaadna dee inaga inala safteen iyo jaamaca siyaad waxay yidhaahdeen abawankaasoo meel la saaramayo dagaal ma dhici maayo marka xaaladdu halkaasay maraysaa waana dareemayaa kolleyda waa la socotaan wax badan oo warbixinin oo naga sugayseen hadalkan hadda kolley taaltaal baan dhiganayo hawlaha iska taagan berina wax laga yaaba inaan hawlo kale iyo adigu arrimo kale oo aan doonay odayaasha si gaara inaan uga warramo inaan baanu ku jiraa marka dee sidaa noola socda arrinkaasna allahu naxariista abaankusta inaga dhexdooda nagu baxay laakiin waxaan ugu dhiganaa dadweynaha in madaafiic lagu soo garaacay magaalada inuu ku dhintay koonaha magaalada oo waad ogeydeen buu ku dhintay gurigiisa hortiisa gurigiisa saas uga soo baxaan gurigiisa guri ku xigaan markaa wada joognay ilaahay u naxariisto laakiin dee nimankii puntland taageersanaan adigu ay kacsan yihiin oo looga shakeen nimankana ku dilayinba waxay uga shakeen maalintii hore inuu dee nimankii puntland lahaa inagiisayna dee aynu wada hadlaynay dooda adaga dheerayna dhex martay inaynu dee dhinac isugu raacno oo dhulbahaanta asisi socon weydayey maamulkii khaatimo oo kuwii nimankii dayara samaala diiday oo adag ugeydeen waxay yidhahdeen saynu baawar u yeelano aynu ku xoojino puntland arrinkaasaa laga doodayay